filimku wuxuu ku furmay meel keena halkaas oo nin odaya uu ku laabanayo gurigiisa kadib markii uu kalluumaystay. Intii uu jidka sii socday wuxuu dhulka ka helay ukun weyn oo uu soo dhawaaday si uu u sii eego. Markii uu kor u qaaday si lama filaan ah, dhawaqa diisoorka ayaa uu maqlaya kaasoo ka soo baxaya meel u dhow. Ninkii ayaa markaas soo jeestay si uu u arko diisoorka weyn ee gadaashiisa taagan. Labadoodu waxay isku eegeen si degan, odayguna si caadi ah ayuu u salaamay diisoorka isagoo u jawaabaya waxa uu helay kheylo cadho badan. 5 sano kadib waxaana la tusayaa shaybaar ku yaala gudaha keynta kaas oo saynisyahano qaarkood ay cilmibaaris ku sameynayaan xaaska. Waxaa soo baxday inay isku dayayaan inay abuuraan nooc cusub oo dinosaur ah iyagoo isku daray DNA-da labada nooc ee makhluuqa. Dhanka kale, madaxa saynisyahanada Richard wuxuu soo galay qolka tijaabada oo uu ku duray serum xaaska, taasoo keenaysa inuu u dhaqmo si adag. Waxa uu bilaabay inay xakameyn kari waayeen xaaska. Saynisyahanadu waa inay ka hortagaan oo ay dejiyaan. Tani aad bay u niyad-jabisay Richard maadaama uu isku dayay inuu abuuro dinosaur muddo sanad ah, laakiin dhammaan dadaaladiisii ay khasaareen. Haddii uu si dhaqso ah xal u heli waayo, maalgelintiisa waa la jarayaa. Muuqaalka xiga, ardayda dugsiga dhexe qaarkood waxay booqanayaan matxafka halkaas oo ay ku arkayaan lafaha dinosaurka iyada oo macallinku u sharaxaya dabargo'a dinosaurka. Wiil aad u jecel oo lagu magacaabo Chris ayaa weydiiyey haddii ay jiraan qaraabo dinosaurka uu leeyahay kuwaasoo weli nool. Macallinku wuxuu u sheegay shimbiraha, raahyada iyo xaasyada inay yihiin qaraabo fog. Markuu tan maqlay, Chris ayaa sheegay in laga yaabo inay jiri karto dinosaur weli nool, laakiin ardayda kale ay isku fasalka ahaayeen way ku qosleen isaga marka laga reebo saaxiibadiis John iyo Carrie. Safarka matxafka kadib, markuu Chris guriga ku soo laabanayo isagii asxaabtiisa, waxa uu arkay dukaan lagu magacaabo Wall of Wonders. Tani waxay ka dhigaysaa mid xiiso leh si uu u galo dukaanka. Gudaha waxa uu kala kulmaa mulkiilaha kaas oo u eg odaygii aan ku arkaynay bilowga filimka. Markii hore, odaygu wuxuu u qaatay Chris inuu yahay ilmo caadi ah, wuxuuna u sheegay inuu baxo maadaama uusan hayn alaab uu ku ciyaaro. Laakiin markuu wiilku ku adkaystay in la tuso wax aad u yaab badan oo soo jiidasho leh, odayga ayaa soo saaraya waxyaabo qadiimi ah oo kala duwan. Tani waxay xiiso gelisaa Chris, laakiin wuxuu weli doonayaa inuu arko wax aan caadi ahayn. Muddo kadib, odaygii ayaa ugu dambeyntii soo bandhigay sanduuq qufulan isagoo u sheegay inuu hayo wax gaar ah. Wuxuu sidoo kale caddeeyay inuusan lacag ka doonin, laakiin keliya uu u ballanqaaday inuu sanduuqa ka dhigo mid safe ah. Chris ayaa ogolaaday ballanqaadkaas. Dabadeed Chris wuxuu gaaray guriga, waxa uu galay qolkiisa isagoo si qarsoodi ah u furay sanduuqa. Wuxuu helay ukun weyn oo la mid ah tii aynu ku arkaynay bilowga filimka. Chris dabadeed wuxuu ka daawadaa online dhowr fiidiyoo ah oo ku saabsan sida ukunta loo dilaaciyo. Kadib markuu helo macluumaad ku filan, wuxuu dejiyaa shuruudaha saxda ah wuxuuna ku daboolaa beedka buste kahor intuusan qadada ula bixin waalidkiisa. Muddo kadib wuxuu ku soo noqday qolkiisa isagoo oo sugaya in ukunta dilaacdo. Dhowr daqiiqo gudahood, dildilaacyo ayaa ka soo baxaya ukunta, waxaana gudaha ka soo baxaya dinosaur yar oo qurxoon. Chris ayaa la yaabay maadaama uu aaminsanaa aragtida ah in dinosaurka ay dabar go'een. Markii uu isku dayay inuu taabto makhluuq yar oo uu cararay, waxa uu qolka dhexdiisa ka dhex abuuraa qalqal, wuxuu jabiyaa wax kasta, wuxuuna aqalkii ku dhuntaa sariirta hoosteeda. Si uu u soo jiito dinosaurka, Chris waxa uu helayaa fikrad, waxa uu u dhigaa nacnacyo sariirta horteeda. Marka hore dinosaurka yari ma daneeyo, laakiin ugu dambeyntii carafta macaan ee uu leeyahay nacnaca awgeed waxa uu soo baxaa bannaanka. Chris waxa uu u xaqiijinaya inuusan la damacsanayn wax dhibaato ah. Wuxuu bilaabaa inuu ka salsalaaxo madaxa. Dinosaurka wuxuu bilaabayaa inuu aamino isaga, waxa ayna isaga ciyaaraysaa qolkiisa. Waxayna u gudubtaa miiska akhriska ee Chris oo waxay bilowdaa inuu ku dhufato buugaagtiisa. Waxa uu maaray inuu ka qaado buugga afka dinosaurka, wuxuuna u ballanqaaday inuu u keenayo cunto ku habboon. Wax yar kadib, markuu Chris ka soo noqday kajada, waxa uu ogaaday in dinosaurka uu wax yar ka koray cabirkiisii. Si kastaba ha ahaatee, wuu quudiyaa, kadibna wuxuu ugu magac daraa saynisyahankii uu jeclaa ee Albert. Taas kadib waxay ku qaataan waqti kubad ku ciyaaridda. Kadib markii Chris hooyadiis u timaado inay hubiso isaga, si dhaqsi leh ayuu u qariyaa Albert oo wuxuu iska dhigaa inuu seexanayo. Hooyadii way yaabtay, laakiin ugu dambeyn way ka baxday qolkiisii. Maalintii xigta, Chris wuxuu aadayaa iskuulka isagoo wata Albert. Asxaabtiisii John iyo Carrie ayaa u yimid. Chris wuxuu isku dayay inuu Albert u qariyo, laakiin dinosaurka waxa uu leeyahay qorshayaal kale oo waxay ka soo baxdaa Chris gadaashiisa oo waxay hor istaagtaa asxaabtiisa. John iyo Carrie way yaabeen markii arkeen dinosaurka, waxay bilaabeen inay su'aalo ka weydiiyaan. Isagoo aan doorasho kale lahayn, Chris wuxuu la wadaagayaa sheekada cajiibka ee ku saabsan dinosaurka sidii uu u helay. Ayagoo wata weli hadalkooda, waxay ogaadeen in Albert uu koray cabirkiisa. Chris kadib wuxuu qaatay go'aanka inuusan tegin iskuulka maalintaas oo Albert geeyo dukaanka odayga. Nasiib darro, markuu halkaas yimaaday, wuxuu ogaaday in magaca dukaanka isbedelay. Hadda waxaa maamulo islaanta ah, taasoo sheegaysa inay keligeed ka shaqayso meesha. Isaga oo yaaban, Chris ayaa wax ka weydiiyey odayga. Islaantuna waxay u sheegtay inuu yahay ninkeedii oo dhintay 5 sano ka hor, laakiin lama oga sababta uu ku dhintay. Chris wuxuu go'aansaday inuu Albert geeyo matxafka dinosaurka si uu wax badan uga ogaado. Markay gaaraan meesha, wuxuu la hadlaya receptionistiga, wuxuuna ka codsanaya inuu la kulmo mas'uulka meesha. Waxay ka codsatay inuu xoogaa sugo oo uu sahmiyo matxafka ilaa matxafka uu ka imanayo. Ugu dambeyntii, saynisyahanka ugu sarreeya ee Richard ayaa yimid matxafka. Waxa uu halkan u joogaa si uu u ururiyo muunado lafa kale ah si uu u soo saaro DNA-ga dinosaur ee cilmi baaristiisa. Inkasta oo Chris uu ku mashquulsan yahay sahminta, Albert waxa uu maarayaa inuu ka baxsado boorsidiisa oo wuxuu bilaabay inuu ku boodboodo hareeraha lafaha dinosaurka ee la soo bandhigay. Gabadhii hooyadeeda ayaa arkay Albert. Gabadha ayaa aad u xiiseynaysa, waxay u malaynayaan inuu yahay dinosaurka robotka ah, sidaa awgeed wax qalalaasa ah ma jiro. Si kastaba ha ahaatee, Richard wuxuu kaamirada CCTV-da ku arkay Albert, wuxuuna u degdegay si uu u soo qabto. Ganacsi ayaa ka socda matxafka dhexdiisa iyadoo dinosaurku meelaha ordayo.
Chris ugu dambeyntii wuxuu qabtay Albert oo wuxuu ku celiyay boorsada. Nasiib darro markuu ku dhow yahay inuu baxo, Richard ayaa la qabsaday isaga oo su'aalay Chris waxa ku jira boorsadiisa. Chris waa uu ka cararay isagoo aan wax sharaxaad ah bixin. Albert ayaa sii kordhisay gaajadiisa. Chris wuxuu aadayaa supermarket si uu cunto ugu soo iibiyo. Nasiib darro gudaha dukaanka ayaa ogaaday Albert oo bilaabay inuu ceersado. Isagoo cabsanaya dinosaurka ayaa soo dhex mara dukaanka isagoo abuuray qalqal. Ugu dambeyntii wuu baxsaday oo wuxuu ku dhuntaa xagga dambe ee gaariga. Kadib mulkiilaha baabuurka ayaa soo noqday oo kaxaystay isagoo gebi ahaanba ogeyn in Albert uu gudaha ku jiro. Chris waxa uu dareemay in tani ay tahay aragtidii ugu dambeysay, waayo ma awoodo inuu gaaro gaariga. Markii uu guriga gaaro, mulkiilaha baabuurka wuxuu ogaanayaa Albert kaasoo hadda si weyn u koray. Waxaa soo baxday inuu cunay dhammaan cuntada ku jirta jirida baabuurka. Mulkiilaha cabsan ayaa ku qaldamay inuu yahay bahal xun, wuxuuna isku dayay inuu toogto, laakiin Albert si weyn buu u maareeyay inuu baxsado. Muddo kadib, ninku wuxuu wacay booliiska oo u sheegay wax ku saabsan dinosaurka. Si dhaqso ah ayay ku yimaadeen oo waxay qabteen Albert. Kadib waxay la xiriireen Richard oo ah khabiirka cimaaradda ee magaalada. Chris waxa uu arkay in booliiska ay qabteen saaxiibkii, wuxuuna u raacay saldhigga booliiska. Waxa uu gaaray saldhigga wuxuuna arkay Albert oo qafis ku jira oo la dareemayay inuu hadda ka weyn yahay sidii hore. Waxa uu ka fikirayay sidii uu u caawin lahaa saaxiibkii. Waxa uu la kulmay oday da' ah kaasoo shabaha kii ukunta siiyey. Ninku waxa uu weydiiyey sababta uu halkan u joogo. Chris wuxuu u sharaxay dhibka oo dhan. Si la yaab leh, odaygu wuxuu u ballan qaaday inuu caawinayo, wuxuuna kula taliyay inuu Albert geeyo meel ballaaran sida keynta oo kale. Chris waa uu aqbalay inuu raaco talooyinkiisa, laakiin ma hubo in sidaa uu samayn karo. Waxyar kadib, Richard iyo kooxdiisa way yimaadeen oo waxay Albert ku kaxaysteen baabuurkooda. Markii ay baxeen, Albert wuxuu eegayaa Chris. Odaygii wuxuu soo kaxaystay baagi car, wuxuuna u sheegay Chris inuu soo galo gaariga. Waxay u ambabaxeen shaybaarka. Intii ay wadada ku socdeen, aabbaha Chris ayaa arkaya laakiin ma rumaysanayo, xumoodii inay tahay dhalanteed. Richard waxa uu khudbad hambalyaha u jeedinaya kooxdiisa ka hor intaanu Albert gudaha gelin. Dhanka kale, Chris iyo odayga ayaa isticmaalaya nitro si ay u gaaraan shaybaarka si degdeg ah, laakiin waxay ogaadeen in gaarigu aan lahayn wax bariig ah. Iyagoo isku dayay inay joojiyaan, waxay go'aansadeen inay isticmaalaan xarigga baroorsinka ah. Ugu dambeyntii, odaygii wuxuu ku guulaystay inuu joojiyo baabuurka isagoo ku dhuftay geed. Waxay gaareen shaybaarka kaas oo si weyn u ilaalinaya shaqaale badan oo ciidan ah. Odaygii ayaa markaas u soo jeeday Chris inuu tago oo soo helo Albert inta uu ka sii jeedinayo ilaalada isaga. Kadib wuxuu u manayaa oo ilaalada oo wuxuu iska dhigaya inuu sameeyo xeelado sixir ah. Chris si dhuumasho leh ayuu u galay shaybaarka oo ka raadiyay Albert. Ugu dambeyntii waxa uu helay Albert oo qafis ku xidhan. Waxa uu u muuqdaa inuu hadda noqday dinosaur buuxo oo waa uu weynaaday. Si lama filaan ah, laba waardi ayaa goobta yimid, waxayna isu diyaariyeen inay weeraraan Chris, laakiin waxaa ka soo gaaraya odayga oo ka badbaadinaya. Waxa uu furaha ka qaatay mid ka mid ah ilaaladii oo uu sii daayay Albert. Si kastaba haatee, markii ay isku dayeen inay meesha ka baxaan, Richard iyo kooxdiisa ayaa ku wareegsan. Richard wuxuu ku amray raggiisa inay xiraan saddexdoodaba, laakiin ilaaladu waxay ka argagaxeen cabirka weyn ee Albert uu hadda yahay. Ma rabaan inay u dhowaadaan isaga. Markuu arkay tan, Richard wuxuu u sheegay kooxdiisa inaysan ka baqan dinosaurka, laakiin isla markaa Albert ayaa aad u ciyay oo qeyliyey oo wuxuu u cararay keynta isaga iyo Chris iyo odaygiiba. Iyagoo aad u doonayay inay helaan dinosaurka cilmibaaris iyo ujeedooyin tijaabo leh, Richard iyo kooxdiisa ayaa raacday iyaga oo ku hubeysan qoryo. Kadib markii ay gaareen wadnaha keynta, odaygu wuxuu Chris iyo Albert u kaxeeyaa gudaha godka si ay ugu dhuntaan. Richard ayaa ku qeylin inuu lacag siinayo Chris haddii uu ku soo wareejiyo Albert, laakiin Chris ayaa ka diiday midda isagoo caddaynaya mas'uuliyadda ka saaran daryeelka Albert. Odaygu wuxuu ka dhaadhiciyay Chris in keynta ay tahay meesha ugu fiican ee Albert uu si farxad leh ugu noolaan karo. Wuxuu soo jeedinaya inay isaga ku daayaan halkan. Markii hore, Chris waa uu diiday inuu ogolaado saaxiibkiisa inuu ka tago, laakiin xoogaa fikir ah kadib wuxuu gartay muhiimadda deegaanka dabiiciga ah ee nolosha Albert. Isagoo ka cagajiidaya, ugu dambeyn wuu aqbalay. Kadib wuxuu macsalaamiyey saaxiibkii isagoo muujinaya jaceylkiisa iyo daryeelkiisa. Albert waxa uu galay keynta halka odayga iyo Chris ay baxeen. Isla markii ay soo gaareen wadada weyn, Richard iyo kooxdiisa ayaa qabanaya, iyaga oo dalbanaya inay ogaadaan halka Albert uu joogo. Chris waxa uu sheegayaa in Albert uu bad qabo oo uu si xor ah ugu noolaan doono noloshiisa. Isla markiiba baabuur booliis ayaa yimid, taasoo keentay in Richard iyo kooxdiisa ay cararaan. Askariga ayaa markaas soo qaaday oo dib ugu soo celinayay magaalada. Muuqaalka xiga, labadoodu waxay fadhiyaan banaanka isla dukaankii uu Chris ka helay ukunta. Wuxuu u mahadcelinayaa odayga badbaadiyay saaxiibkii. Isla markaa, John iyo Kelly ayaa halkaa yimid, iyaga oo wax ka weydiinaya halka uu Albert ku sugan yahay. Chris waxa uu sheegay in Albert uu baxay markii uu soo jeestay si uu u baro odayga. Odaygii ayuu meesha ka waayay, isaga oo jahwareersan. Chris waxa uu dukaanka dhexdiisa ku arkayaa odayga oo baaba'aya, wuxuuna ogaanayaa inuu yahay ruuxaan. Ujeedadiisa ugu weynna ay ahayd inuu badbaadiyo Albert. Filimku wuxuu markaasi ku dhammaanayay qeylada Albert ee keenta dhexdeeda. Hadda wuu nabdoon yahay oo xor buu ka yahay dhammaan dhibaatooyinka magaalada. Waa Aflaan Media, waxaan ka codsanayaa inaad like saarto muuqaalka, subscribe na dhahdo channelka. Mahadsanid.